in laga soo baxo hoolalka iyo warqadaha loo soo qoqorayo xasan sheekh maxamuud oo loo soo istaagay isgoosyada tahay hadday shalay badbaado qaran joogtay maantana badbaado qaran way joogtaa anagaana matayn waa maasantii dalkan weligiis meel uusan tegin ayuu maanta taagan yahay maantay waxaa muddo dhaaf ah 3 maamul goboleed muddo dhaaf ah oo iska joogaan waxaa dhammaad ah muddo xileedkii la dhaariyay baarlamaanada hadda joogaan dhammaad ah ummadana matashay oo hadeertaan dastuurka waxaa ognahay hadday sax ahaan lahayd lama gadan lahayn lacagaa dadka qaar meesha lagu geeyay ayagoo diidan lacagaa la siiyey ma fahanteen intii og kuley waa ogtahay marka waxaan leeyahay waxaas wax fiican ma madaxweyne waxa adiga shalay diidana anaga inaan kaa qaadano macquul ma ahan mudugororsina macquul ma ahan Soomaalidu waa qabiil madaxweynaha ku qabiilkan ku jira mudana madaxweyne reerkaas aan ka wada dhalano hawiye waxaan u maleynaa 7 madaxweynaha soo martay wadanka dad noocaas in ilaahay noo dooray waqti tayramkii dhawaa maanta dadka Soomaaliyeed cimri la aada masaajidka safkar looga jira jimcaha haday tiyaday waqti walba tahay dastuur la dhameystiri ma muddo kororsiya la aaday waa loo jeedaa way no 15 May war kale ma jiro 15 May marka waxaan arki doonaa madaxweyne Soomaaliyeed oo ciyaal weerayna ma la ciyaal weerayn doonaa aniga waxaan isleeyahay lahay maadaama su'aalo loo badan yahay hal su'aal iyo hal baraarujin marka baraarujinta dhalinyarada ku fiicanaha markasta waa ogtihiin aan taas ku hormaro dalka waxaa ku soo duulay dawladda Israa'iil sida ogtihiin dhulka Soomaaliyeed dad dawladnimada Soomaaliyeed ay ku soo duuleen mar kale waxaa dawladnimada ku soo duulay madaxweyne Xasan Sheekh iyo nin la yiraahdo Aadan Madoobe dalka waxaa ka jira abaaro marka haddii aan tixo dhalinyaro dhibaatooyinka dawladnimadeena iyo dalkeena haysta ka gayoon mayno afurkina waa nahaaya haddii aan maalin u diyaar garownay in dawladda Israa'iil laga difaaco dawladnimada maantana waa inaan u diyaar garowno madaxweyne Xasan Sheekh iyo Aadan Madoobe inta la socotay in dawladnimada laga difaaco sabab 15 May imisa ka dhiman cidna isma weydiinayso in madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladdiisu aysan rabin dalkan doorasho heshiis lagu yahay laga qabto dawladnimaday marka halis ku yihiin dawladda Israa'iilna waxay halis ku ahayd dawladnimada abaartana maxay halis ku tahay waaba la dhimanayaaba dadkii way dhimanayaan marka dhammaantood inaan si isku mid ah u difaacno dhalinyaradii meesha waxaa la isugu keenay dhalinyaro matalaysa hal doorka dhalinyarada Soomaaliyeed marka dhalinyaro dawladnimada in la difaaco madaxweyne Xasan Sheekh shakhsiyadiisa waxba nagama gelin laakiin shakhsiyan dawladnimada Soomaaliya inuu ku ciyaaro mustaqbalkeena hore loogu soo ciyaaray 60 jirada 70 jirada ku soo ciyaaray annaga oo maanta 35 jira 40 jira mustaqbalka caruurteena haddii inta lagu ciyaaro aan iska aamusnay qabyaaladeyno waxa waaye waxba soo bixi maya waxaan rabaa taas baraarujin inay noo noqoto horta arrinta ku aadan meeshaan dastuur la dhameystiri ma muddo kororsiya la aaday waa loo jeedaa way no 15 May war kale ma jiro 15 May marka waxaan arki doonaa madaxweyne Soomaaliyeed oo ciyaal weerayna ma la ciyaal weerayn doonaa ma si xoogaa waa ka roonaan doonaa waa ka tashanaynaa marka maxaa yeelay 15 May waa la ciyaal weerayn doonaa gudoomiye baarlamaan madaxweyne ciyaal weeraynaha soo socdo waxaan ugu jawaabi lahayn naga rabaa dhalinyaro inaan ka tashano Dr. Kofi iyo madashii inay Sheekh Shariif iyo Xasan iyo ninka la yiraahdo Xasan Al-Qeyri iyo Kofi soo dhaaftay iyo Dani ee anaga nagu soo noqdeen uga mahad celinaynaa anagu cabsan mayno Muqdisho aan joognaa kaalinteena waa qaadanaynaa Dr. Kofi waxaan rabaa raalli ahaada hal su'aal inaan weydiiyo Dr. Kofi yow dhalinyarada Soomaaliyeed diyaar idin madashu diyaar ma tahay waa maasantii horta waxa aad iyo aad nasiib darro ah maanta meesha dalkeenu marayo sida aan wada ognahay tayramkii dhawaa dadkii la dooranayay oo hoggaanka Soomaaliya u noqonay haday baarlamaan tahay haday madaxweyne tahaba dadka ugu da'da weyn ahayd haddana dad soo shaqeeyay oo khibrad shaqo leh ahaayeen da'da nabiga Maxamed ummadiisa lagu sheego waxa la yiraahdaa bayna 60 wa 70 dad da'daas dhaafay ahaayeen ismaana dhahin maantay wadankeena dadkii da'daas ahaay oo aqoon ay isku yareen oo way aragnimo ay isku yareen ayaa maanta wadankii halkaas u jiheynay waxa nasiib darro ah dawladnimadii inay noqotay wax looga shaqeeyo qabyaalad
wax looga shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed in la iskugu diro wax looga shaqeeyo in dadka lagu kala diro sida aan wada ognahay dawladnimadu waa shacab sharci iyo dal intaas dawladnimo la yiraahdaa waxaa nasiib daraa dastuurkii iyo heshiiskii bulshada oo ummadda Soomaaliyeed ku heshiiday in dad jeebka iskaga qaateen oo ay ku raadinayaan doorasho ay ku soo noqdaan sida aan wada ognahay calanka baasaboorka dastuurka waxaas oo dhan waxay u adeegaan muwaadinka maanta dadkii Soomaaliyeed abaara baabi'inayso madaxdii waxaad arkaysaa malaayiin dollar inay ku bixinayaan dastuurka in la ansixiyo inay ku cimraysanayaan mansayra waxaa kamid ahayd siyaasigu waa midkii suudkee tayga u xirto saboolka iyo baahanaha sadkoodii boobayo kuwan saakoba cuntayn naftooduna seegan tahay waxay sugayeen la tagay sufuufta hore galaan imaamku saa ku yahay sujuudu halka ku qoran adkaarta la suubiyay salaadaha waajibka iyo sunnooyinka kaaga wacan bishii buu soomayaa 9 habeenimo 8 uu soo kacaa cibaado suubiya hooyada laamiga sifayn hareeraha dhididku siqi sadkeedii baa ku maqan ma garan maalmaha socdiya cimriga way qoos kaday su'aasha qubuurta ta cimra al-aada masaajidkaas tafkar looga jiraa jimcaha haday tiyaday waqti walba tahay ummadii Soomaaliyeed abaaray u baaba'aysa oo mas'uulka ka ahaayeen waxaa nasiib daraa dad noocaas in Ilaahay noo dooray waqti tayramkii dhawaa maanta dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasta joogan war soo jeesta oo dalkiina u soo jeesta oo waxa socdo ka hortaga waxaad arkaysan xildhibaano Soomaaliyeed oo state dhan u matala wadankeen waa federaal deegaan doorasho leh in deegaan doorashadoodii lagu hor istaagay oo ay xabsi ahayn muddo intaas la eg waxaan rabaa aniga dadka Soomaalidu waa qabiil madaxweynaha ku qabiilkan ku jira mudana madaxweyne reerkaas aan ka wada dhalano hawiye waxaan u maleynaa 7 madaxweynaha soo martay wadanka madaxweynihii ugu liitay oo musuqmaasuq ku takrifal kala qaybin bulsho lagu eedeeyay waay reerkan ha ceebayn annagana han ceebayn aan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha qarrimi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inaan sameeyno tan dastuurka hadaa u soo laabto horta dastuurka anaga dhalinyaro ka ahaan cid nagu matashmiyaa jirto oo anaga aqoon-yahanadeen dhalinyarada cid nagu matashmi jirtaa haddii si guud ugu soo noqdo dastuurka markii aan ka soo tago su'aashaas horta dastuur waa heshiis bulsho waa sharci ummad kala xadeynayo ay ku wada noolaanayaan haddii heshiis bulsho oo ummad kala xadeynaya ku noolaanayaan ay tahay qolo gaar ah sidee rabto ma ka yeelan kartaa oo intee qorqorato ma waxaysan kartaa teeda kale gabadhaas waxay dhahday yacni dhalinyarada fursaduu siinaya magaceeda ma xasuusto laakiin xildhibaanka waxaa ku qornayd 40 sano inuusan ka yareen 40 sano dabcan dhalinyaro ma ahan 40 ku qornaa soo marka taas ka soo tago su'aalaha madaxweynaha weydiinaya waxaa rabaa inaan madaxweynaha baaq u diro oo madaxweyne shalay waxa adiga ka doodaysay oo diidaneed inaa maanta annaga ma taqaanaay qasab nooga dhigto horta wax suurtagal ma ahan ummadana matashay oo hadeertaan dastuurka waxaa ognahay haday sax ahaan lahayd lama gadan lahayn lacagaa dadka qaar meesha lagu geeyay ayagoo diidan lacagaa la siiyay ma fahanteen intii og kulay waa ogtahay marka waxaa leeyahay waxaas wax fiican ma madaxweyne waxa adiga shalay diidana anaga inaan ka qaadano macquul ma ahan mudugororsina macquul ma ahan wadankan dhaqaalo wuxuu ku jiraa dhaqaalo xumo dhibaato badan ay ka jirto marka dib hoos u fiir madaxweyne wadankan wana maasintii gabagaba sii maraynaa raallahada waad ku soo noqon talooyinka iyo dhammaan su'aalihii aan weydiinayna siduu uga jawaabay waa uga mahad celinaynaa intaa markii laga soo tago madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaadka yahay xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo asagana waqtigiisu dhamaadka yahay aadan madoobe dalka xaqiiqatan waxay u jiheeyeen meel laga maarmi karay ayadoo ay maqan yihiin dowlado goboleedyo ay ka mid yihiin maamulka Somaliland Puntland Jubbaland iyo maamuladii asaga resource-ga uu heeyay ku noolaa oo ka gaabsaday inay ka hadlaan ansixinta dastuurka fujiska ah ee uu sameystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaa markii laga soo gudbo
waa laga baaqsan karay xaqiiqatan tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka warhaysaan dhibaatooyinka waaweyn oo dalkan uu ka geystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ay ugu horeyso in maalin cad ah ay ku weerareen gurigiisa ilaahay ha u naxariisto jenaraal sheegow axmed cali oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday xabsiga dhexe ayagoo gacanta ku hayo si xaqdaro ah intaa iyo in kaleeto ka badanba diiwaano oo lagu qorayo oo qaran oo aan la iloobeyn ayaa jiro waqtigeedaan lagula xisaabtami doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15 May marka la gaaro marka waxaan ka codsanaynaa macaaradka guud ahaan in laga soo baxo hoolalka iyo warqadaha loo soo qorayo xasan sheekh maxamuud oo loo soo istaagay isgoosyada ayadoo si nabadeed loo soo bandhigayo aragtiyada iyo diidmada cad aan ku diidannahay muddo kororsiga iyo wax walba oo midnimada ummadda Soomaaliyeed dhaawacay intaa markii laga soo gudbo madaxweyne xasan sheekh maxamuud luuqad walba oo wax loogu sheegi karay way ka dhamaatay wuxuuna aaminsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradka mishiinkii dhaqaajin jiray inuu asaga yahay asagana villa Soomaaliya uu galay laakiin waxaan rabnaa inaan tusno mucaaradka mishiinka dhaqaajina inuusan asaga ahayn gacmahana laga qaban doono hadduu ilaahay idmo legitimacy-ga iyo sharciyadda uu haysto oo dhowr iyo 10 maalmood ee dhiman markay dhamaato xasan sheekh maxamuud gacmaha laga qaban doonaa sida dadka asaga ka horeeyay gacmaha looga qabtay waana maasantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshan waxaan iskugu imaanay inaan ugu hadalno arrimaha hadda taagan dhibaatada dowladnimada hadda ka jirto dowladnimada hadda waxay ku sii socotaa burbur iyo gud ayay ku sii socotaa xasan sheekh iyo tiimkiisa iyo aadan madoobe oo master ansax ah in ma aragtay dalkan god ku ridaan oo ma aragtay hore u sii wadaan aadan madoobe inuu meel la soo istaago sida dad dugsi quraan u dhigaya camal ma aragtay fasaxa idin siinaya waa soo laabanaysaan hal sano aan joogaynaa meel ay ka shaqeynaysa ma ahan oo maxaan ku yiraahdaa Soomaali waa la wada leeyahay shakhsi jeebka ma gasho karo dastuurkan xasan sheekh iska sameystay oo anagana tala aan ku lahayn ma aragtay xitaa qiyaali inay tahay waxa ka garanaysaa xasan sheekh tartanka ciyaalka meeshan quraanka yani tartanka yani ma aragtay jaayizada lagu siinayo madaxtooyada inuu dastuur ugu sheekeeyo xitaa ciyaalkaas dastuur wax ay ka ogyihiin ma lahan dastuur meel kasta wax kasta shay kasta markii lagu celceliyo inay run noqdaanna maxaan ku yiraahdaa looga celceliyaa marka inay beentay waxa ogaanay meel kasta la taagan yahay hadda xamse wuxuu ka hadlayaa meel abaara ka jiraan abaara iyo waxyaabahaas uu ka hadlayaa wuxuu ku soo daray dastuur marka shay kasto been ah waa lagu celceliyaa si run u noqoto marka annagana waan taaganahay haddii dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay qiyaaliga iyo dadka dhalinyarta maskaxdooda xur ha ka dhigaan 15 May haddii la gaaro dalkan madaxweyne inuu yeeshto waaye hadduusan yeelaninna maxaan ku yiraahdaa dalkan sidii 91 loo laabanaa maxaan ku dalkan burbur ku sii dhacaya madashan waxaan leeyahay inaa hoteelada ka soo baxaan ficil action ay sameeyaan dhalinyarta hadaan nahay aqoon-yahanada aan nahay diyaar waxaan u nahay maxaan ku Soomaalinimada inaan badbaadino sida ma aragtay yahuud aan ugu badbaadinay maxaan ku yiraahdaayo aqoonsiga ay Soomaaliland aqoonsatay oo aqoonsi beenaadka ay ku sheegtay saas darteed aan ugu badbaadinay banaanbax maxaan ku loo sameeyay oo madasha meel walba laga dhiidhiyay haddana waxaan diyaar u nahay abriil 14 anagaan xilwaanimo aan sugeynaa maxaan ku yiraahdaa dadkan kuraasta ku fadhiyaan oo 4 sano waqtigooda dhamaaday oo deegaankooda dalkoodana war aan u haynin anagaan booskooda sugeynaa waxaan leeyahay 14 abriil hadaa idin dhamaato waxa way anaga xilwaanna nahay maxaan ku yiraahdaa banaanka la soo istaageynaa hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaan leeyahay xasan sheekh tiimkiisa wax meelaha ku dhoobayaan wax ma shaqeynayo sidii ayaga iska dhaadhiciyeen maxaan ku yiraahdaayo fiqi iyo tiimkiisa iyo tiimka baraha bulshada maxaan ku u adeegsanayaan waxay isticmaalaan waxay tahay xasan sheekh sanadka mucaaradka ku jiray mucaaradka asaga abaabulay hadda mucaaradka waan aqaana wax iga qaaday malay xasan sheekh taas uu micna iska dhaadhicinaya laakiin ogsoonow shacabkii iyo dadweynaha waxaan u taaganahay dhalinyarada aqoon-yahanada hadaan nahay dalkan inaan badbaadino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
aaduu mahadsan yahay marihii hore ee airportka Brawe markan waxay la soo dhaweysaan